atiriisho baadiyo ayaa inta fariin oga diraya hadii videogan daawanayso waxaan ku leeyahay walaalay waa ku bariyaa gabar walaasha ahay mar walbana ani adi si qaas ahaan ayaan isku naqaanaa iyadoo YouTube-ka ahayn ani adi aqoon kala naga dhaxayso dadku dhan way og yihiin waa ku bariyaa wiilkaas ka fogow mar walbeeto waxaan ku leeyahay wiilkaas ka fogow kuguma haysto ina wiilkaas kugu arko gabar walaashayna waa tahay waxna ma ku dhihi karo walaalay waa ku bariyaa Nuurdiin ana jecel oo ku bariyaa ka fogow hadii gabar walaasha ahaan ay fiirinaysid kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel kasta dunida ka joogtaan halkaad nagala socotaan waa channelka Fandoor Media oo aalabin sugdiye barnaamij xiiso leh warar iyo warbixino maanta barnaamijku wuxuu saabsan yahay Nuurdiin KL oo qiyaanin gabar xiriir hore oo jecel ay lahaayeen intaan ugu gudagalno barnaamijkeena fadlan walaal macaan markii ku horseedayda channelkeena soo booqato subscribe saar gomaleelkana furo si kuu soo dhaw waxyaalahan soo gelino ta kalena waxaan maqlay Soomaalidu like kuma saartan ma garanaysaa videogan like saara waxaan rabaa inaad videogan like saartiin inay lacag laga ma qaadaye like iska saar ha adaan kula hadlaya adiga nimikay daawanaya inaan waalad muusa laakiin ma waali gabadhan waxay xiriir jecel oo qarsoodi ah la lahayd Nuurdiin KL oo hadda guursaday atiriisho baadiyo balse inta uu soo guursan atiriisho baadiyo koor waxa uu xiriir la lahay ama la sheekaysan jiray oo la hasaawi jiray gabadhan YouTuberada ah waana gabar caan ah wayna soo qarisay muuqeeda ama wajigeeda oo waxay soo duubtay cod sir ah una dirisay Nuurdiin KL balse waa ku gacan saaray oo uu ka diiday inuu ka aqbal xiriirkoodii jecel oo waxa uu guursaday atiriisho baadiyo ay dhawaan isbarteen gabadhan codka ay soo duubtay waxa uu taabanayay meelo badan oo qasay nolosheeda iyo nolosha Nuurdiin KL waxayna sheegtay in ay aad uga tamaqato marka ay aragto atiriisho baadiyo iyo Nuurdiin KL oo muuqaalo soo wada duubaya soona gelinaya social media ama YouTube markay daawato waxay sheegtay in ay aad uga xumaato inay jeceshahay Nuurdiin KL kuna aysan arki karin qof kale ama dhigad ama asaageed ah oo Nuurdiin KL la hasaawaya sheegtay in ay dhowr mar la xiriirtay Nuurdiin KL kadib markuu ku gacan saaray xiriirkeedii jacayl oo iska diiday waxay sheegtay in ay fariimo badan u dirtay WhatsApp iyo Facebook kana u soo jawaabi diiday bal hadaba codkaana la daawo oo la dhageysto gabadhan codkeeda una sii sheegay asxaabtaada gabadhan waxay sheegtay in ay aad uga xun tahay in xiriirkeedii jacayl laga tulqaado ama qofka ay jecleed laga tulqaado ay ka wada atiriisho baadiyo ayaa iga tulqaatay jacaylkeygii marka qofka aan rabo inaan idin kala hadlo qof kale ma ahan waa wiil oo idinkoo dhan wada taqaaniin saafilaayo qof YouTuber oo maanta wiilkaas aqaanin ma jiro dadkoo dhan way wada yaqaanaan qof kale ma ahan waxa waaye Nuurdiin ayaan waxaan rabaa halkan inaan fariin oga diro Nuurdiin ani asiga sida ogtihiin ba aqoon way naga dhaxaysaa laakiin inkastoo maalmahan aan isla anahay meel kasta oo kala hadlo maalmahan igagama soo jawaabayo message-keygana ma furaayo waa dareemi kartiin waxa sababta keenayo idinkoo daraad isku keen barateen oo aan ahayn dad saas isku wanaagsan oo maantana masajadeyda oo Nuurdiin fureynin maxaa sabab oo keeni karo oo Nuurdiin masajadeyda oo fureynin idinka su'aashaas waa isweydiino si saafilaayo laakiin aniga ayaa jecel inaan idin la wadaago waxay ku imaatay iyo waxa ay tahay Nuurdiin sababta taleefankeyga oo soo qabaneynin asxaabta hadaa idin sheego sababta Nuurdiin taleefankeyga u qabaneynin mar dhow ayaa Nuurdiin ani asi wax yar wala hadallo yar ayaa isdhaafsanay waa fahmi kartiin anigoo hadaladane oo hadeertaan rabin inaan zaid oga sii hadlo waxay ahaayeen hadaladii yaray oo aan isdhaafsanay ayaa waxa kamid ahay Nuurdiin inaan u sheegtay inaan jecelahay markaan u sheegay wixii ka dambeeyay Nuurdiin waxaan ka arkay waxyaalo badan oo maanta aan rabo inaan maxaa lahaa idinka idinla wadaago laakiin ma rabo inaan asaga fadeexesto anigana inaan isfadeexeeyo ma rabo sidaa aawadeeda ayaa waxaan rabaa kaliya inaan videogan ii share gareysaan oo Nuurdiinna aa gaarsiisaan inaan mar walbeeto waxa aan u haayo ay tahay wax weyn waa dareemi kartiin idinkoo dhan qof walbeeto oo xaaladan camal soo maray sidoo uu dareemayo حتى إذا كنت تركينا ودريمي كرتان وحنون إلى هاي أما وحدب أو إلى هاي مركي أو قف نيد وحوين ويسيد أما سيد عد قف كي أو تاي وأسجني أنت سلان هذا كهينين Nuurdiin هذا فيديو كان داوني سيد وأي مقلي سيد وحقولي هاي هذا وحدي هاينين إما لهان وأيدي كرتا وحمكو هايو وإيجاسو جوابي كرتا مسجك لكن إنا مسجك إنا فرتيد أو حتى أنا ربين
taas haddaan runta ka hadlo si weyn ii dhaawacday taas daawadeed ayaa maanta igu kaliftay inaa zaaid ayay ii dhibtaa waxaas oo dhan. mida kale oo zaaid iisii dhibto markaa videoyadaada fiirsanayo ama janaalkaada ha noqdo ama janaalka Atrisha Baadiyo ha noqdo. mida kale zaaid iisii dhibtaa waxay tahay marka walba markaa arko labadiina sida isku tihiin ama sida wax iskula duweysiin taas ani zaaid ayaa uga xanuunsadaa zaaid ayayna ii dhibtaa mar walbeeto arintaas waan ka xumaadaa. haddaa labadiina videogan daawanaysiin waxaa idin leeyahay aniga oo labadiina isku kiin arko idinkoo video isla duubaysaan oo haddana si oo xad ahayn video iskula duubtiin ani ahaan markaasi qaas ay idin fiiriyo videoyadiina mar walba qaasa u fiiriyaa ma aqaano waxa igu diro waxaa laga yaabaa waxa u hayo Nuruddin daraadeed inaan videoyadiina u fiiriyo laakiin aniga taas mar walbeeto ma ku haystin mana farxad geliso. Atrisha Baadiyo ayaa inta fariin oga diraya hadii videogan daawanayso waxaan ku leeyahay walaalay waa ku baryaa gabar walaasha ay ahay mar walbana ani adi si qaas ahaan ayaan isku naqaanaa iyadoo YouTube-ka ahayn ani adi aqoon kala naga dhaxayso dadkoo dhan way og yihiin waa ku baryaa wiilkaas ka fogow mar walbeeto waxaan ku leeyahay wiilkaas ka fogow kuguma haysto inaa wiilkaas kugu arko gabar walaashayna waa tahay waxna ma ku dhihi karo walaalay waa ku baryaa Nuruddin anaa jecel oo ku baryaaya ka fogow haddii gabar walaasha ahaan ay ii fiirinaysid waxaan kaa codsanayaa inaad ka fogaatid markaa qof jeceshahay haddaa qof kaleeto ku ag aragtid oo weliba qof arsaagaada oo kaleeta lah ma u dulqaadan kartid aniga ahaantay ma u dulqaadan kari zaaid ayay ii dhibtaa waxaa iga codsi ah oo haddaan gabar walaasha ahay aan ku leeyahay Nuruddin marka Atrisha Baadiyo waxaa kaa codsanayaa inaa codsigayga iga aqbashid oo aad ka fogaatid Nuruddin. Atrisha Baadiyo qalbiga ayaa iga dhaawacday weliba si xun oo aan kaa filanaynin ayaa igu sameysay. halkaad nagala socotaan saaxiibayaal waa channelka Fandor Media oo aalabin soo gudbiya barnaamijyo xiiso leh warar iyo warbixino aan soo gudbina maalin kasta fadlan walaal macaan markii ku horseeday channelkina soo booqato subscribe saar gambalelkan fursi kugu soo dhaca waxyaalaha aan soo gelina maalin kasta haddaad horey noola joogtaan muuqaalkan like saar una sii share gaar asxaabtaada si ay u daawadaan waad ku mahadsantihiin sida qiimaha badan aad noola socotaan mar kasta iyo asxaabta cusub ee nagu soo biirtay dhawaan waa bahda Fandor Media isku duuban oo idin leh kulanti wacan saaxiibayaal.